قراضي وينا وقال فوقاتي نصف كي وينا أبوان كي مفكر في صومالية سيارة محمد إبراهيم والسماء كنا مقعدة حضراوي waxaan noo gorfayn doonaa maanta halkan u fadhinaa bandhigeennana maanta walaalkeen nuur xasan jaamac ayaan kusoo dhaweynayaa oo noogu gorfayn doona buugga kusoo dhawowaanaa waa kuma بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم انتهى بديت ضمان كسوق القرياشة مدشن والسلام يا روناهانتي بوغان وابوغ أدوي ومجلس الله إلى هو الورن أيا وأبوتو دبيسي صوب حدي xog fara badan iyo khibrad fara badan iyo aqoon fara badanna xambaarsan ayaan jeclaanay bal inaan idinla wadaagno si loogu dhiirrado in loo sii akhriyo buuggani waxaa ku urursan dhaqankeennii taariikhdeennii suugaanteennii hiddaheennii nidaamkeennii dhaqan dhaqaale soo maray muxuu ahaa nolosheenii miyiga iyo ta magaalada iyo waxa iska bedelay guumaysigii iyo bilowgii sidii soomaalidu ay ula dhaqantay waxa uu ka hadlayaa sida uu noo furfuray guumaysigu iyo dhaqanada xunxun uu noola yimiday wuxuu ka hadlayaa dhaqankii soomaaliyeed iyo siduu wanaagsanaa u lahaa hadday tahay xagga barbaarinta wiilka sida loo barbaarin jiray gabadha sida loo barbaarin jiray iyo qof kastaba inuu qof bilaa shaqo iska fadhiyo macno daran oo meelaha playstation ciyaaraya inuusan jirin qof kasta inuu meesi iyo shaqo ku mashquulsan ayuu ka hadlayaa run ahaantii qofku markuu meel gaadho uu wax qabsadana waqtiga guurka la gaadhana gabadhana in lagu tarbiyo la carbin jiray shaqada hortaala ninkana sidaas oo kale si lamida loo carbin jiray hab qurux badanna la isku guursan jiray kadib qaybaha kala duwan buu ka hadlaya markaa buuggu run ahaantii buugga qiimaha uu leeyahay waa buuggii koowaad oo hadraawey isaga oo tiraab ah uu qoro inta badan tix baad ku aragteen hadraawi gabayadiisa iyo maansooyinkiisa uu soo tabiyo laakiin kan waxa uu door biday inuu ka dhigo tiraab uu aragnimadiisii nololeed uu markaa noogu soo gudbiyo waxaad garanaysaan hadraawi waa nin aad u caqli badan oo filosofar ah aqoon diimeed iyo tud dunyawi iyo tu waaqaca ah iyo ta noloshaba aad u yaqaana oo la soo noolaa nolosheedii hore miyigana wax ka garanaya ta magaaladana ka garanaya aqoonta cusubna yaqaana diinta yaqaana afafka yaqaana dibad tegey carab tegey dalkeena joogay miyi iyo magaalo marka waxa uu soo ururinayaa khibraddiisii uu la soo noolaa ayuu ka hadlayaa oo aad uu u dul joogsanaya buuggoo si guud ahaaneed marka buuggoo dee kolley xajmigiisa arkaysa xaashadiisuba aad u balbalaaran yihiin anuu muddo 2 toddobaadan ku akhriyey inkastoo aad in laisku dul taago u baahan yahay siyaabo kala duwan baad markaa uga fahiyey waa kow oo buuggu waa qaamuus waxaa ku jira boqolaal eray oo haddaad akhridid kugu cusub oo u baahan inaad qaamuus kala furatid oo erayadaasi af soomaaligaaga aad ku soo dartid marka mar waxaa u akhriya sidii qaamuuska oo kale oo erayo badan oo af soomaaliga kaga soo bixi mar waa sugaan oo mahmaahiyii dhaqankeena lagu sunti jiray bulshadu ay ku kala socotay ayaad ka helaysaa gabayo ayaad ka helaysaa tix baad ka helaysaa mar waa waano mar waa fikir mar waa dhaqan iyo anshax buu ka hadlaya intaasoo dhan ba uu koobsanaya
dowladnimada Soomaalidu markay bilaabantay buu ka hadlaya wixii ka khaldamay buu ka hadlaya talooyin buu bixinaya marka aadamuhu iyo dhulka markuu yimid buu ka hadlaya marka haddaan ku yar horan kulley buugan in la min bilow ilaa dhammaad la akhriyo wuxuu u baahan yahay maalmo u baahan tahay laakiin waxaan sameynaynaa inaan yar taataabanno meelaha qaarkoodna aan hoos ugu yar dhaadhacno meelahaas oran karno waa in iminka la qaato oo tusaale ahaan lagu soo qaado meelaha kalena maaragtay hadee dib u akridaan marka kulley laba buug baan haynay yaan hayey oo aniga Hargeysa iga timiday marka buuggan maktabadaan u hadiyeeyey isaga aniguna kan baan haystaa marka ciddii rabta ayuu akhrisan kartaa bay ka dhigan tahay mustaqbalkana waa la helaya insha Allah marka sababtii buuggu wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 6 cutub uu ka kooban yahay cutubka koowaad wuxuu kaga hadlayaa noloshii aan soo gaadhay buu leeyahay ee wanaagsaneyd buu kaga hadlayaa cutubka labaad Soomaalida iyo xoolaha siday ula nooleen buu ka hadlayaa cutubka saddexaad guurka iyo geediga nololeed buu ka hadlayaa cutubka afraad wuxuu ka hadlayaa xaaladda maanta taagan oo aan ku jiro abuurta iyo ibliiska ayuu ka hadlayaa cutubka shanaad ka lixaadna wuxuu ka hadlayaa saancad iyo saymo oo ah gumaysigii noo yimiday waxyaabihii noola yimiday ayuu ka hadlayaa marka in yar haddaan tusaalaan isku taagno taariikhda abwaanka Ibrahim Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi waa markii hore nin miyi ku dhashay buu ahaa meel barbaraagtiisa ku dhashay xoogaa markii uu isagoo kuray oo waqtigii ariga la raacayay uu gaadhay ayaa cadan la geeyey xaggaas ayuu malcaamada ku soo dhigtay marka ciyaalkii magaalada ayuu halkaa markuu madrasada joogo ayuu u sheekeyn jiro sheekooyinkii miyigu uga sheekeynayay diin iyo dacwo iyo waraaba iyo qisooyinkii dee sheeko xariirkee fara badnaa uga sheekeyn jiray markaa sheekadiisii badnaa ayaa loogu bixiyay Hadraawi waa nin sheeko badan bay ka dhigan tahay oo maanta kaftan badan ayay ka dhigan tahay kabacdi dugsiga maadiga ayuu dhigtay oo halkaa ka aasaasnaa kadib dagaal baa dhacay Ingiriiskii iyo dhexdii wadankii Yaman ka dhacay isku dhici markaa Soomaali badan oo jaaliyad badan oo Soomaali meesha deganay wuxuu ka baqay inay ku dhex dhintaan markaa way isaga yimaadeen waxay markaa soo noqoshadii markaa meelaha 60 iyo 7 ayuu ka soo noqday xaggaas marka aaraartoo kale markuu ka hadlayo isagu waqtigaasi wuxuu waxbarashadiisa ku dhamaystay la foole kadib macallin buu ka noqday waqtigaa uu macallinka ka noqdaa wuxuu bilaabay inuu riwaayado iyo maansooyin fara badan sameeyo riwaayadihii iyo maansooyinkuu sameynayey isagu marka uu sameeyo taqaanaan abwaanku Soomaalidu waxay tiraahdaa hadalka nina si yiri nina si u qaaday isagu wuxuu ka gool lahaa marka suuqa la geliyo waqtigaana waqtigii tawradii deesay lama waxaan dhahday siyad bar waqtigiisii ay taagnayd waqti deeshuuliyada oo fikirka tawriga la barbaarinay fikradda waxay ka soo jeedinayeen la dagaalamay marka waqtigaa mawaadiic marka uu soo bandhigo waxaa dhacaysay in marka ay la qoonsaday marka tiraba dhowr jeer buu yeedhay siyad bare weli nin fiican baa tahay laakiin inta badan maxaa dhaca nin kastiba marka hadalkaaga inta badan waa hadallada loo adeegsaday ee lagu ataago weeyaan marka wuxuu leeyahay markaasi anigu dee abwaan baan ahay bulshaduna marka ninka abwaankii uu wax sameeyo iyada ayaa macnaysato nolosheeda dhinacay ka anfacayso u adeegsata marka anigu mar hadduu aniga tegay wixiisi waxaan gacanta ku hayay muxuu sidaa ugu macnaystay kama jawaab celin karo marka waxa kuma noqon markuu joogsan waayo markii dambe waa la xidhay muddo xabsiga ku jiray barbaraa waxaa lagu xidhay baydhabo iyo dhinacan halkaa markii lagu xidhay isagu dee ismuna dhigan qof marka la xidho soo u moorajaba soo maa wuxuu hi maxaad qaban kartaa marka gurigii uu ku xidhnaa daaradiisii wuxuu bilaabay inuu ku beero inuu dhir ku beero inuu wixii uu quudan lahaa uu ku beero inuu digaagaday iyo hawayaan uu ku dhaqo oo dadkii magaalada u soo doontaan markasta marka dadkii magaalada ay xiriir la sameeyaan oo waxa uu ka iibiyo uu qaar siiyo oo ay la sheekaystaan oo haddii dowladda nin wuxuu noqdayba dee waxtar leh ilaa ugu dambayntii la sii daayey markii dambana gacankii markii dhowr jeer la xidhay
وجود وين وكو هذا في كعان كان دجال الكيسي وصوب حي وكمدها مركا gudahaan waa sidaasi marka wuxuu ka hadlayaa baadidoonka nolosha uu leeyahay bini'aadamka noloshiisa marka uu nool yahay ma aha keliyaati qof maxaad cuntaa maxaad cabtaa inama uu keliyaati ka fikireen war nolosha kugu hareeraysan sirta ku duugani maxay tahay bini'aadamku doodooraa noloshiisa intuu nool yahay marka arrimaha yar tahay nolosha sawir bay ku leedahay marka dhalinyarta tahay sawir bay ku leedahay marka da'da tahay sawir bay ku leedahay marka hiiga iyo hanka oo la quudiyo bini'aadamku inta badan awoodda saaraa leeyahay inuu qofku hadii jir mid buu leeyahay meel uu tiigsanaya wuxuu arkayaa dad nolosha wax ka taray dadkaas sidii uu ku gaari lahaa ayuu marka awoodda uu qofku ku dadaala marka wuxuu leeyahay nolosha qofku waxa ka xeel waxay ka xeel qofku nolosha qofka bini'aadamka way ka xeel dheertay nolosha naga xeel dheer si kasta oo qofku ugu fogaado waa isaga oo lan tin ka jiray ka waxa la yiraahdaa aqoontu iyo nolosha bini'aadamka qofka bini'aadamka aqoon ma soo adduunyada intay dhan tahay dacruun fara badan oo ilaahay sameeyay ku duugay asraar fara badan iyo xeerar badan oo nolosha leedahay ku duugan markasta oo marka wax cusub ogaatay waxaad ogaanaysaa jahliga intuu gaarsiisay kaliya tii ogaanaysaa aqoon badan kuma soo dhigasay kumanaan mawduuc jahliga ay qofka ku feedmaya marka sidaad kolba bad cusub u galeysay bad cusub u sii galeysay tanina ma jirtid aad u haysay adiga oo daalay oo rafaaday oo adduunyada marka ka dhimanaysa marka sida adiga koob ka dirin misatin ba aan ka goyn adduunyada oo kale aqoonteedii aan ka goynin ayay la mid tahay leeyahay marka qofka sabab gunteeda aan gaarin buu dhimanaya wuxuu marka ku tilmaamayaa nolosha waa hir soo garanaysid wayfka mawjadaha ay baddu leedahay tusaalaha ama wajda badda waa hirkaas oo kale oo ku baaqaysa waxayna u abuuran tahay in waagii baryaba war cusub uu hayo waa kastoo baryaay dhacdooyin cusub baa dhacaya adiguna haddii aad la falgashid aqoon cusub iyo waayo-aragnimo cusub ayaad ka dhaxlaysaa wuxuu leeyahay hiyiga waxaa la yidhaahdaa sahanka qofka inuu yeesho wax meel wax tiigsado waa xubinka qofka ugu nolol dambeeya qofka isagoo sankaraatulmada ku jira ayuu wax doonaya inuu meel gaadhan rabaa xubnaha kaloo ilaa inta naftu ay gelig laga siinayo oo dhan qofku wuxuu rabaa inuu meel gaadho uu rabaa marka waa xubinka ugu dambeeya uu tilmaamaya ayuu tilmaamayaa marka waxaan bal isku daynaa insha Allah inaan bal bogaga qaarkood aan isir dul taagno wuxuu sheegayaa tusaale cutubka koowaad noloshii aan soo gaadhin uu leeyahay wuxuu sheegaa noloshaas in nolol anshax ku samaysan oo ku dhisanaya haddii anshaxu luma buu leeyahay waxaa yimaada jahli sababa in qofka dareenka dadnimadu ka takalluto anshaxu qofka wuxuu ku hayaa dhaqanka bini'aadamtinimada uu leeyahay inaad taa ku sugnaatid bini'aadam bay kaa dhigaysaa inaad dhaqan wanaagsanaatid waxaad ku noqonaysaa bini'aadam laakiin inaad dhaqanka ka tagtid halkee tegaysaa xawayaan baa tegaysaa waxaa la dhahaa bini'aadamku wuxuu ku hareeraysan yahay 4 noole ayuu ku hareeraysan yahay baa la dhahaa 3 noole waxaa la dhahdaa shaydaan waxaa jira shaydaan baa jira xawayaan baa jira malaa'ig baa jirta intaasna waa noole soo nagu hareeraysan soo maha waxaa la dhahdaa malaa'igtu waa khayr barax taray iyadoo khayr maana kale uga tegaysa xawayaankuna waa baahi mise shahwad barax taray in wax la cuno in wax la fuulaan oo kala qabtaan ku jira intaa bay hayaan shaydaankuna waa maxay waa shar barax taray bini'aadamkuna intaa ka dhexeeya bini'aadamku khayr dhamaystiran ma aha shar dhamaystiran ma aha shahwad dhamaystiranna ma aha khayrku wuu kugu duugan yahay sharkii wuu kugu duugan yahay shahwadiina way kugu duugan tahay laakiin si wadadii lagu tilmaamay dhaqanka iyo anshaxii bini'aadamtinima haddii aad raacdid dhex baad ka ahaanaysaa laakiin haddii anshaxa laga tago wuxuu tilmaamayaa in bini'aadamtinimada laga tegayo ayuu tilmaamayaa bulshadu waxaa jira waxaan ka yaabo ka faa'iiday
waxa dagaalka nolosha isku hayay waa laba shay oo tilmaama han iyo hunguri gulay hanku waa qofku inuu meel sare higsado waxyaabaha hoose oo dhan ka tago ya han la yidhaahdo marka nolosha aad arkaysiina khayrka iyo sharka dagaalka isku hayay waxa ugu weyn ee maaragtay la isku dagaalaya la isku hayay labada shay baa dagaal ku haya bini aadamku hadduu hunguri usoo dhaadhaco inuu qofku farxo ku dhaco maxaa sabab waa hunguri galay soma saadarteed bulshadii Soomaaliyeed dhaqankeedii wanaagsanaa waxaa ka mid ahaa inay dadku dad 24 saac shaqo ku jira ay yihiin sidaa darteed dad caana dhanaba xitaa hilibka xoolaha inay qalaan bay iska dhici jireen waqtiga xoolaha la qaliyay la gowracay waxay hilibka xoolo cadculisku waxay tusaale u soo qaadanayaan dugaagnimada ay tusaale u soo qaadanayaan maadaama dugaagnimada dabeecada leedahay ay tahay way iska ilaalin jireen ilaa waqtiyo gaara mooyaan qof inuu marti qaadayo inuu aroos jirto inay geeri jirto inay waxyaabo sidaas sameeyeen in muddada idin neef la gowracayo hilibkiisa la jarjarayo la karinayo waxa oo dhan hashiisa buu labada galin subaxina mar la cabi jiray galkida mar la cabi jiray marka bulshada waxaan soo gaaray buu leeyahay 8 jirku oo sidii ilmo yar ka dhashay wiilka cadiya bulshadu caanaha cabo oo cadi hadiya jirsata ayaha marka waxaa bulshadeenaasi ay dhaqan ku lahayd kuliya bulsho hal abuurka lagu yaqaanay ninku hal abuurka ka yaqaano ayuu nolosha door kaga lahaa marka hal abuurka iyo fanka iyo waxyaabaha la yidhaahday hal qabsi iyo cunto ayay dadka wahay kelmad kastoo qofku ku yidhaahdo kelmadda mahmahadeedii murtideedii xikmadeedii ama gabaygii la midka ahaa ee daliil u noqonaya ilaa marka aad wax sheegayso soo ayad qoran qofka inaad u daliilsiso soo mahmaha dadka loo daliilay mise gabay baa loo daliilay bini aadamku hunguriga marka ay dadka in qofku hunguri u noqdo hungurigu qofka aan ku dilaaba markaa qof hunguri inuu noqdo marka laga dagaalamayo waxay tusaale u soo qaadan jireen oo oran jireen Soomaaliyeed hore saxaro u dheer baa la isaga tiraa ale sala isku ilaaliyo waxay oran jireen nin soo ka qaaday waana seef ka qaaday qof hunguri ka qaaday oo qof ka dhintay oo kale ayay oran jireen maamay marka maxaa kamid ah waxay ku leeyahay dhaqankeenu wuxuu asal u ahaa diinta islaamka waa dhaqan diinta islaamka ku fadhiyo inuu diinta islaamka ku fadhiyo waxa ka garan kartaa ku leeyahay xikmadaha iyo maamaya indha laga baqa ilaahay ku yahay ninkii uurka dabaya ilaahay baa arkaya ninkii isha dabana aadmiga arkaya sida ay u indha xun tahay uma alla يعني نلاش سيد تهون ليدنا لكن الله ده أفضل وسوق المدى بليه بهذا إيمان الله أربعش أفضل بالله كقلب يسوع حب اليوم وإيمان يشابه الله كيار ما يشوف رون ما يقان الله ما يقان غيري الله أي تقانا ذيك هو ناس هو بيورجي qofka hadda qof soo dil oo wax dambiyo ka dhici kara laakiin hadda dhiigii qariisado ka dhaartay ma gelina tirada aqoobad bulshada ku dhici jirtay oo inay dhamaanayaan bisoo ka jiray rabbi waa talahay dadna waa taawahay ay oran jiray sir ma qabe allah subhana ilaahu aqoonna hanagu cadaabin eexna hanaga tagin waxyaabahaas marka xikmadaha fara badan ay akhrin jireen waxaad ku garanaysaa marka aquubu wuxuu soo dareerinayaa xikmado iyo aqoon fara badan marka wuxuu marka maamaayo fara badan ayaa laga tagay oo nolosha marka wax ka taraya ayay ka tageen dadkeena waxaa ka mid ahaa calooshaada ceeriin looma qariyo ujeedo marka maxay ka dhigan tahay sharafkaaga wax calooshaada tagaya lama dhaafsado qiimihii nolosha aad ku lahayd hunguri ha ku bedelan oo ha ku sharaf beelin bay ka dhigan tahay waa la doogayaan la dacroonaysa ma oran jirtay ujeedada laga waxa waqtiyada adag
karaamada lama iibiyo waayo xumaanta samaan ayaa lagu sugaa hubsiimo hal baa la siistaaba ka mid ah aad buu u farabadanaa halkana markaa kuma soo koobi karo waxyaabahaas oo dhan markaa maamaayo aad fara badan iyo xikmado aad u fara badan ayay soo jerin jireen waxaa ka mid ah xikmadaha laga dhaxlay 3 baara u liita matoshe matashade matashiishe yaa ka mid ah 3 lama cuno nin caadadaada yaqaan maalintii cagtaada yaqaan habeenkiina codkaaga yaqaan buu jiray 3 waa 3 geel xirani waa rag waa rag hal ahaado garow ilaankii waa gaajo ku cun rag goboshiina waa nabad ah ku seexda sidoo tilmaamayna nacam geelu hadduu rag ilaaliyo una lahayn baaba ayaa sabab kala tegaya meel buu maraya garowna waxa macaaneeya waa gaajada soornin u baahan sii baa soo cuntadu waxay ugu macaan tahay markaad ugu gaajo daran tahay ragna goboshi waa nabad rag wuxuu nasaameelay nabadita 3 waa 3 rag abaartii waa arrin la'aan dumar abaartii waa ubad la'aan xoolo abaartoodna waa ilka la'aan weyn 3 baa rag u liitay nin maqan oo aan la tibin nin jooga oo aan la tirin nin tagaya oo aan la celin wala 3 ugu liitay kulli yani nin maqan oo aan la tibin marka hawl baa arrin baa taagan in la xaliyo baahan tahay hebel loogu yiraahdo lagu taban nin raga tahay laakiin xaaladda ninkii furdaaminaya adeena lagu tabinba waa liidashada ragga waa kulli adigoo joogo dadkii kamid oo oran adiga dadkii la tirsanayay laga dhaxulay baad ku jirin way ka sii daranta adigoo tagayo oo maartay meel xun ku dhacay oo soo qabana way ka sii daranta 3 saboolnimo leh taladaada oo aan la maqlin tarantaada oo aan lagu farxin tamootidaada oo aan laga naxin waxyaabaha ay maartay soo bandhigayaan bay kamid tahay way kulli waan ka taabanayna bugu 34 waxay sheegeen xitaa bulshadii aan la soo noolayn dad shahwada qiimo geliya maahay xiriirka ragga iyo dumarka dadku sidan xoolaha ay noqdeen maahayn ee way kala safnaayeen wuxuu leeyahay galmada marka sababa la cuskado ayay lahan jirtay ugu horreyn waa in ay sababta koowaad noqoto oorida oo caado ama dhiig ka meedhata waxaa kaloo jiri jiray xidig wax loola jiray waa dhaqankiina hore waxaan ka hadlaynaa habeenka la baxay xidigu waa habeen amran oo la sheegay in qofka calool galaayo noqdo qof bili iyo burjile haddii uu wiil waxa uu noqdaa inan golyeed gaadaale ah oo badiba astaamaha raganimada huban marka waqtiga xidiga waa leega jiray xiise wax la raasoo la jiri jiray oo xiisaas waxa weeye waa habeenkan waa habeen muddo la kala maqnaa oo uu ninku safar ama socdaal ka soo galay waa habeen ka mid ah habeenada amran ee labada ruux xiise ku kulmaan maadaama ay muddo kala xidhnaayeen waxaa kaloo jiri jiray xaal qaabka kale tiyada kale la isku galmo habeenkani waxa uu yimaadaa marka uu ninku gabadha yara birbaaxo kadibna intaas ayuu xaal uga dhigaa si cadhada uga jarta waxaa kaloo jiri jirta xurmo tulleedha habeenkani waxa uu yimaadaa marka iyada oo gabadhu reerkoodii muddo ku maqnayd ay soo laabato ee ay timaado iyada oo la gelbinayo oo xoolo mood iyo noolba leh la soo siiyo xujo baa jiraysa waa ooridaadii xalaaleed waa iyada oo habeen ku xujaysay oo kugu soo yaro galgalatay marka inahaas buu sheegaya wuxuu sheegayaa marka uu tilmaamayaa majaraha ay noloshu raacsanayd waxaa hagayay
nolosha sida u dhantay waxa hagii lagu leeyahay falsami farshaxan xeel dheeri iyo aftahnimo buu ku leeyahay nolosha dhanba sida u dhantay falsami markuu leeyahay in wax kasta oo la qabanayo loo qabto si qurux badan oo qofka qabanaya xiise gelinaysa si taasi run u noqoto waa in qof waliba shaqada uu qabanayo noqdo mid uu hibo gaara u leeyahay yani qof kastaba shaqada uu ku fiican yahay hibada u leeyahay ma qaban jiray shaqada ninka qof kastaba dan ku tirada una ma shaqayn jiray farshaxan in wixii la qabanayo la dheeho la xardho dun iyo meydhax midaba leh lagu qurxiyo sida hararka marka shaqada qofku qabanayana farshaxan qurux badan buu kusoo darayay waxbuu kusoo biirinayay qofka astaana waa qurxiya xeel dheeri waxaa la odhan jiray horaanba waxaa la odhanaya horaan baa laga sii fiirsan jiray oo qofku hadalka marka uu meel la tegayo halkaa waqtigaa kuma hadli jirin maarata wuxuu sii diyaariyo uu sii qofqoro uu sii qurxiyaba aftahanimadu waa in waxa la odhanayo hadab iyo hagoog loo yeelo waa in aan odhaahdan la dheerayn oo aan lagu rafan khayru kalaami maa qalla wadalla diiyo taas bay marka cutubkaana halkaas ayaan kaga tegaynaa cutubka labaad baan u gudbaynaa soomaalida iyo xoolaha wuxuu tilmaamayaa soomaalidu inay tahay dadka ugu aqoonta badan ugu waayo aragnimada badan maxaa yeelay dadka xoola dhaqatada yihiin waa dad socod badan maadaama socod badan yihiin kawkay la falgalayaan intaasoo geed bay baranayaan intaasoo dhuloo kala duwan bay baranayaan cimilooyin kala duwan bay baranayaan xoolaha iyo dugaag iyo ilaahay wuxuu abuuray oo dhan dad yaqaano weyn inaanan wax qorin keliyaati baa naga reebtay laakiin ummadaha ugu aqoonta badani waxa uu tilmaamaya inay yihiin dadkaas xoolaha marka aan dhaqanno qaabka ay u tarmaan way kala duwanaayeen awrka iyo orgiga waxa la odhan jiray waa xilli ku qooqa baa la odhan jiray oo isagu xilli gaara unbuu qooqa wanka iyo dameerku xilli walba qooq baa la idhaahdaa dibiga iyo faraskana waa calool ku qooq oo marka iyagu ay barwaaqad ku jiraan unba inta badan qooqaan waxay ummaddaasi ahayd markaa wax maalaayacniga waxa la yidhaahdo ayna dali ugu jirin dadka saahide bay ahaayeen waxay odhan jireen fadhi iyo fudi cibeed laysla waayo layska fadhiyo imika dadka ninka raaxada uun nolol ka raadinay maayo dani waa seetay odhan jireen nin habeen ogi maalin maharsado buu iyay odhan jiray iyo xagla laaban xoolo kuma yimaadaan bulshadu markaa sidaas ayay ahayd haddaas intaa aan kuwaa kaga tegno waxay odhan jireen qof kasta wuxuu qurux badan yahay ma hawsha uu qabanayo marka uu hibo u leeyahay markaasaa waxaa ka mid ah hadalladii lagu hadlay waxa caynbacayn looga dhigay hays cajabiyaane ninba dhinaca ku fiicnaado oo nacam wax ka tara oo soo kordhiyo weeyaan waxa weeyaan taa markaan ka gudubno xoolaha ayuu aad neef kasta wuxuu ku fiican yuu sheegayaa markaa maadaama weliba inaan taataabanoon ay tahay de oo waqti badan aanan lahayn 40 milyan iyo wax saacad ka yarlaysiiyey inaan gudmaro ku sameyno niyad dareensiiyo badan cudurka saddexaad waa loo gudbay guur iyo geedi noole ayaa laga hadlaya wuxuu leeyahay xikmadda uu halhayska uga dhigay si nolol wadaaggu u fududaado waa in wax isku ahaani jirto dadkuna yeesho xeer iyo xarig wax ka dhaxaysiiya waynu jiraan in nolosha la wadaago waa in wax laisku ahaado soo ma ahaanshuhu markaa waa in dhinac abtirsiinta wax laysaga ahaado dhiig dhinaca dhiig dhinaca xididkoo ah maaragtay guur laysku xidhiidhsano inta badan markaa nolosha maadaamay arkay ninka raggii horema guursan jiray ninka waxaa laga rabay 100 halaad iyo baaqabkeeda halka waxa loo wada fadhiya anaga waxna laga rabaa ma jirin basoma wax kastaba waa hilib qayriba cidda yahay hal markuu ka sheekeeyay waa yaabaysaa
ninka raggii gabadh inuu arkaaba yaa suurtagelay marka sanadka oo dhan maalinta la soo doogaa maalin yar heelo iyo ciyaar la isu dhiman jiray way gabadhii ninka isla ciyaar isla marayay maradiisa haddii ay shalmada gabadhu ay taabato ugu leeyahay marada gabadhu ay taabato intaa wuxuu jiro sanadka oo dhan uu sii jiray ugu leeyahay bakawara bal xiisaan ka gaari doona ya nolosha halkaa bay gaarsiisay sidaa bay markaa qiimo u leeyahay wiilku marka uu yar yahay inta ilaa iyo intuu 4 jir 5 jir ka gaadhayo hooyadii baa helaysa marka uu soo dhasho waxaa la odhan jiray dhinaca caloosha loo dhigo dhinaca dhabarka loo dhigi jiray si una baryo waaweyn u yeelan hooyadu waxay samayn jirtaa la yidhi iyadaa kuulkuulin jirtay waxay ugu heesaysaa heesa fara badan oo himigii qofka inuu waxa nolosha sugaysa tusa geesi inuu yahay inuu wax dhiiri gelinaysa waxaa kamid a marka dhamowa dhashii nebi muxamedowa dhallaankii faadumowa dhabtaydu ku diidi mayso dhardhaar adag laguma saaro dal dheer laga haybiyowa dermada loo sii hayowa sidii doog la hiigsadowa sidii damal la harhsadowa dad iyo dunyaba dhergowa ducada loo uuriyowa guntiga feedhaha gashowa garweyni ka soo baxowa guddida geed ula baxowa nugaal godan goonyaheeda guddoonka ka yeedhiyowa adoo laba go iyo shaal leh adoo geel dare dhex jooga ayaan guri kaaga yeedhay gabdhiyo wiil kuba duceeyey xasaab igu odhan jirtay hooyadu way igu ducayn jirtay sidaas buu markaa dhaqankeennii ahaa gabadha markaa ninkuu sidaa u nool yahay ilaa 40 jirku ku gaari jiray baa la idhahdaa doonnimada maxaa yeelay 100 halaad iyo baaqabkeedii baa laga joogaa waxaa kaloo loo rabaa ninkan inuu ninku waa ciidankii dalka waa dadka bulshada isaga ciidan u ah cadowguu ka dhicinaya hadduu qofku hore u guursado dee wuxuu noqonayaa nin ubad iyo wax walba ka soo maha waa laga ilaalin jiray ragga ilaa intuu xoogeysanayo nin ragga noqonayo uu hantida urursanayo waddankana difaacayo waxna ummadda usoo qabanayo markuu shaqada ummadda soo dhammeeyo ayuu tabeerka u iman jiray sidaas bay ahayd gabadha markaa guur laga raadinayo layskama guursan jirin iyadana waxaa hindiraac baa la eegi